إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد ولا ليال وحين كجرني باب كيني موضوعين كسبسنا قناعة sidaad ogtihiin ama sidaynu ognahay mawduuceeni qaybteeni hore waynu soo dhaafnay oo waxay ahayd qanaacada ayaynu ka hadlanay haddana insha Allah ta'ala qaybtii ugu dambeysay ayaynu dhameystirnaa sidaas oo kale waxa la yiraahdaa al-qanaa'atu kansun la yafna waxa weeye qanaacadu waa kansi iyo kayd iyo sanduuq ay ka buuxaan waxyaalo faa'iido ah ama akhlaaq wanaagsan waliba aan dhamaanayn القناعة كنس لا يفنى وحوي قناعة كيد يو كنسي عن دمانين وي مركانا قفكو qanaacadaas aynu ka hadlanay oo waliba wuxuu inuu ku qanco wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay haday badan yihiin iyo haday yar yihiin qanaacadu maaha oo kaliya macnaha qofku inuu shaqada ka tago oo inuu xoogsado oo wax qabsado inuu ka tago ama inuu wax siyaasado wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay inuu ka tago lagama wado laakiin المهم waxa weeye qanaacadan ama waxaanu Ilaahay siiyay waxyaalo si barakeenaya oo si badinaya qofku inuu la yimaado oo shaqadii ah inuu la yimaado taas wax madluub ah oo qof looga baahan yahay oo qofku macnaha in uu ku darsado taas uu wixii siyaasado isagoo oo shaqeynaya ama shaqeysanaya xoolo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu barakeeyay isagoo oo si siyaadinaya xoolihiisa taas waa loo baahan yahay qofkii waa laga doonayaa waxa la diidayaa qofku qanaacadii iyo waxyaaluhu Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay in uu horto nicmadu siiyay inuu ku kufriyo بلديديا معناها ونعمة وده هبل بائسيي هبل باوحى إسيي إنه إلهي سبحانه وتعالى إلهه وإلهي سبحانه وتعالى حسن وايو ونعمة إلهي سبحانه وتعالى سيي وده هبل بائسيي سلاسو كلا دتكم مركز الإنسان وحال لها دتك لقدنتو markay macnaha barooranayaan ooyaan ama odaygu heerka markuu ka dhinto waxa laga yaabaa ciyaalku ama macnaha kuwa far badan oo waaweyn in ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala irsaaqadii uu siiyay dhahan hebel maadaama uu dhintay de waxba ma helano awal macnaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa wax siin jiray irsaaqada Ilaahay baa siin jiray biilka Ilaahay baa siin jiray laakiin inta ooyaan oo ay dhahan maadaama uu hebel dhintay de waxba ma helano taas waa shay aan banaanayn oo qanaacada ka soo horjeeda oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmooyinkiisa in lagu shukr noqo ka soo horjeeda iyada laftirkeeda way soo galaysayo de nicmadu ay ku saabsan tahay marka qofku haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax siiyo inuu ku qanco haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka qaadana inuu macnaha qanaacadiis ka tirtiro maaha oo meel aan banaanayn u leexiyo xadiiskeena koowaad aynu ku bilaabno wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam qad aflaha man aslama qofkii islaama wuu liibaanay warusiqa kafafan qofkaas oo lagu arsaaqo wax macnaha ku filan وقنعه الله بما آتاه كتب وحو إلهي سبحانه وتعالى وسيي وقنع قفكاسو مركور قفكاسو وإسلامي أما دينتي بو سوغلي أما إلهي سبحانه وتعالى بو اسكديبيو دي وحوها قف معاسي ودنوب سمين جري وإلهي سبحانه وتعالى عاسين جري لكن إلهي سبحانه وتعالى أيو اسكديبي إسلام نمدو وإلهي إنا اسكديبتid فعل كاغو أوردن إنا إلهي سبحانه وتعالى اسكديبتid وآترايد أنو إلهي سبحانه وتعالى وحو رالي كيهي أيان سمين يا سمين ما يوحو إلهي سبحانه وتعالى أوصن رالي كاهن qodobkaas waa qodobka koowaad qofku inuu Ilaahay isku dhiibo ama uu islaamo oo diinta islaamka soo galo warusiqa kafafan qofkaas oo lagu arsaaqo wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay oo ku filan qofkaas wax ku filan lagu irsaaqay
qofku markuu islaamka soo galo macnaha waxa loo sheegay waxa laga wado oo qofku islaamnimada markuu soo galo waxa loogu lalayo irsaaqada iyo qanaacada waxa la isku larayo waxa weeye qofku sidiisaba diinta islaamka markuuna haysan de waxa weeye qanaaca malaha de wuxuu jecel yahay hadii waadi ama laba waadi oo dahaba ama dheemana oo lacag la siiyo muxuu dalbaya mid kale ayuu rabaa oo hadana lacag oo dheeman oo dahabo oo lacag oo hantiya ayuu rabaa markaana qofku sidiisaba haduu gaal yahay waxa ogaataan de qofkaas waa bila qanaaco waatuu nabiga sallallahu alayhi wasallam laha qofka mushrika ee gaalka yaakulu bi sab'ati am'a nabiga sallallahu alayhi wasallam nin baa soo boqday nin gaal ah ayaa guriga ugu yimi marti ayuu u noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaalada qaar kamid ah ama dadka marti uga dhiga dadka marti ka dhigta nabiga sallallahu alayhi wasallam uu martin jiray oo wuxuu sameyn jiray martida de nabiga sallallahu alayhi wasallam uu fiicnaa gaaladu markay ku soo baqato qofkaas uu marti ku yahay de waxa weeye waa marti gelinaysayo de ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kusiiba ayaad wax ka siinaysaa qofkaasi wacan baa marti sooraysa markaana ninkaas ama ha ahaado nin ay wax isku hayeen nabiga sallallahu alayhi wasallam ama mid kale ha ahaado adigu ku doono ha ahaado qofka aad gaalka ay marti sooraysid adigu ninkaas uu yimi markuu u yimi ayaa wuxuu yiri waxaan doonayaa caano gaaja ay hayse wuxuu sameeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam ribu u soo dhisa hadhow bulaasta siir hadana uu u soo dhisa sulaastay caanihi soo hadana tii saddexaad tii afaraad tii shanaad toddoba riyaad markii loo soo lisay oo 7 koombo loo soo buuxiyay kii gaalka uu cabay 7 koombo uu dhargay 7 ku dhargay markuu 7 ku dhargay ayuu seexay alxamdulillah isagoo yaaban oo leh waxay ninka nabiga sheeganaya waxay oo inta uu wax dalbado oo u baahanay isiinaya oo aan waxba ii diideen macnaha weligii mu arag qof uu soo booqday ama qof wuxuu uga baahan yahay waxyaalahan iska siisiyay oo qofkaas uu u diidan mu arag marka nabiga sallallahu alayhi wasallam akhlaaqdiisa weyn ayaa waxay ahayd inuu macnaha qofka haduu wax awoodo inuu hayo inuu u diidin nabiga sallallahu alayhi wasallam marka qofku wuxuu u baahdo wuu siin jiray markaana nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu uu siiyay 7 riyaad markuu u lisay ayuu ninka arooti markuu waa baristay buu islaamay diinta islaamku galay wuxuu yiri waa anu bartiba ku islaamay adoo nabiga sallallahu alayhi wasallam buu rumeeyay maadaama de intaas yar ayuu ku islaamayo de nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka yaabay mu arag qofkan oo kale macnaha wuxuu isiri de akhlaaqdan waa akhlaaqdii ambiyada oo kale de qofkan sidan sameynaya waa qof wanaagsan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wanaajiyay oo akhlaaqdiisa wanaagsan ayuu ku islaamay nabiga sallallahu alayhi wasallam qofkaas ku islaamay hadhow baarooti markuu u baahday caano ayaa wuxuu yiri waxa isiisa caano nabiga sallallahu alayhi wasallam ribu u soo dhisay markuu u soo lisay buu cabay markuu cabay ayuu wuxuu yiri bas hadaba waan dharkay marabo nabiga sallallahu alayhi wasallam darsi buu u dhigayaa wuxuu barayaa darsi 10 buu barayaa wuxuu yiri qofka gaalka wuxuu ku cunaa ama wax ku cabaa aw kama qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu wax ku cunaa 7 am'a wal muslimu ya'kulu fi ma'in waahid أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قفك مسلم كان هل على الكلية أي وحكونا أي النبي صلى الله عليه وسلم وكير معناها قفك ببريا أخلاق دي وناكس النبي صلى الله عليه وسلم إسلام ركب ببريا ومحو كير مركا قال أهيد حلي إصاب وقتي تضبط شير أي عانها عبتي تضبط رياد أي لغولسي تضبط كومبوين أي لاسطي مركانا قفك قال كان واسلاسو هدي كنشر وحلاسيو مدرقو ayuu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam hadeerna maadaama diinta islaamka soo gashay waxa ogaataa islaam baa tahayo de nabiga sallallahu alayhi wasallam islaamnimadiisa ayuu uga marqaati naqaya wuxuu cadeynaya ninkan inuu islaamnimadiisu sax tahay macnaha inuu ilaahay diraadi
uu islaamay uu islaam dhaba yahay oo wuxuu ku leeyahay muslimku laakiinse wuxuu wax ku cunaa hal calool oo kaliya. markaana badanaba muslimnimadu iyo iimaanku iyo qofku inuu qanco way isku laran tahay oo way isku xigtaa. maxaa yeelay qofka muslimka ee iimaanka le qofkaas qanca oo wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyay ku qanca. laakiin qofka kale isagu dee ma qanco hadduu bilaa iimaan yahay iyo hadduu gaal yahayba isagu maba qanco xudoonaya wuxuu iska cuno oo wuxuu iska cabo. markaana wuxuu yiri qad aflax man aslama qofkii islaamay ama ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyay oo iimaan wanaagsan la yimi qofkaas wuu liibaanay. warusiqa kafaafan qofkaas haddana marka lagu irsaaqo kafaaf waa wax ku filan. macnaha wax ku filan marka lagu siiyo waxa ogaataa in lagu barakeeyay oo waxa kugu filan maaha wax kastoo aad u baahan tahay maaha wax weyn maaha bal iska wadaaya haddii qofka hanti la siiyo hantidaas la siiyay way mashquulisaa oo cibaadada ilaahay iyo barashada diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay ka mashquulisaa. dunuub fara badan baa laga yaabaa qofkii inay geliso waxyaalo aad u fara badan wayna kala duwan yihiin qofka hantida leh iyo qofka kale aan lahayn. markaana qofka hantida leh wuxuu u baahan yahay dadaal gaar ah oo weyn inuu qaado. macnaha marka hore waxa laga yaabaa mid inuu macnaha mid doonayo inuu wax baabiyo ama dhibaato geysto inuu hanti ku weydiisto hanti uu wax ku baabinayo adna aad ogtahay inuu hantidan wax ku baabinayo inaad macnaha hantidaada ugu helisid kuwa xunxun. waxyaalahaas marka hore qofka qaniga ah waxa la doonayaa dadaal inuu qaado oo sidoo uu macnaha waxyaalaha xunxun sidoo hantidiisa wadada wanaagsan ugu bixin lahaa. markaana wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam qofkaas wax kafaaf ah lagu irsaaqay. kafaafnimaduna waxa weeye waa inaad saddexda waqti wax meel aad ku seexato haddii aad xaas iyo heer leedahayna inaad macnaha heerkaaga waxaa siisid iyo adigu waxaa cuntid iyo iyagu waxay cunaan iyo meel degaan inta inaad heshid. kafaafnimadu waa inta laakiin kafaafnimadu maaha inaad baloolada badan leedahay guryaal fara badan leedahay sadaqado fara badan leedahay intaas oo lacag ay ku soo gasho. kafaafnimadu inta maaha. warusiqa kafaafan waqannacahu allahu bima aatahu qaybta saddexaad waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku qanco wuxuu uu siiyay. marka qanaacadu waxa weeye waa kansigaas aan dhamaaneyn waa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad ku qanacday wixii uu ku siiyey dee balaayo dhan baad ka dheeraanaysaa. markaana saddexdaa waxyaabood qofkii la yimaada ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam waa qof liibaanay. xadiis xaakim ibn xasaam asxaabiga laga warinayo ama uu warinayo isagu wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam baa nimi sawu isii saadana uu isii macnaha waxaan weydiistay saan wuxuu weydiisanayay buu wax isii hado nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri war xakiimow macnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam asxaabta wuxuu barayay akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan uu barayay. markuu yiri xakiimow maalkan waa maal macnaha macmacaan oo cagaaran waa maal cagaaran oo macmacaan. macnaha macmacaanka iyo cagaarku waxa weeye qofku macnaha cagaarkan uu jecel yahay macmacaankan uu jecel yahay. marka maalkan waxa weeye waa maal cagaaran oo macmacaan uu ku leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam. qofkii wanaag ku qaata waa loo barakeenayaa. qofkii laakiinse nafta inuu ku koryeelo oo uu macnaha hantiile ku noqdo oo uu taajir ku noqdo oo naftiisa oo macnaha uu ka dhigo kuwa dadka sharafta leh dadka macnaha hantida leh ee loo yeero bari la dhaho hebel hanti buu leeyahay gacanta lagu fiiqo. qofkii sida ku qaata qofkaas loo barakeeyo. macnaha waa qofka hantida uu iska qaadanayo sideedaba hantidu way kala duwan tahay oo waxna waa qof shaqaystay waxna waa qofku hanti uu iska qaatay. hantida aad iska qaadanaysid haddii aad mid iska qaadatid midaan soo shaqaysan dee waxaa ogaataa taa laguma barakeenayo weliba adiga oo doonaya inaad naftaada ku koryeelitid. haddii aad iska qaadatid oo ilaahay ku siiyo waa alxamdulilah. laakiinse taad u qaadanaysid ama u doonaysid inaad noqotid dadka faraha lagu fiiqo ee boqorada ee qaniga ah ee macnaha hantidooda wax kastaba ama wax xun iyo wax wanaagsan ku bixiya dadka inaad noqotid. marka qofku inuu ku faano hantida maaha laakiin waa inuu ku faano hantida in معناها صدقة يوناك وكبحيك. وكان كالذي يأكل ولا يشبع معناها قفكي لو بركين وايينا وحنقونا يا قفكي عنايا حدنا أنا ندركين أيو نقونا يا قف عنايا ندركين واليد العليا خير من اليد السفلى. قعنتا سريسنا
waxay ka khayr badan tahay gacanta hooseysa. waa aragtay qofku markuu wax qaadanayo gacantiisu hoos bay tahay, qofka wax siinayana saas uu siinaya hoob ku dhahaya, markaana markastaba gacantiisa sareysa. ama hadii qofku wax ku siinayo waa qof isagu wax ku siinayo abariday ama wax weydiisatay, taas way tahayo taasuna waxa weeye qofku macnaha mar waliba waxa fadli badan qofka wax siinaya ayaa ka fadli badan. xakiim baa wuxuu yiri walladii bacataka bil haqqi, ilaahi waxaan ku dhaartay ilaahay kuu soo diray si xaq ah kuu soo diray baan ku dhaartay. macnaha uu dhaartay inuunan weligay ma weydiisanayo qof adiga wax ka dambeeya ilaa adduunyada aan ka faaruqo. maanta ay ugu dambaysa, maanta oo adiga wax ku weydiistay ayaa ugu dambaystay inaan wax weydiisto ilaa adduunyada aan ka faaruqo, ayuu yiri xakiim. balantaas uu qaaday. abubakar baa xilgiis balantiina wuu fuliyay. xakiim ibnu xisaam balantii wuu fuliyay oo xilliga abubakar sidiiq wuxuu damcay inuu waxyaalihii qaswiga iyo waxyaalihii macnaha laga soo qaaday dadkii gaaladaha dagaalkii iyo qanimadii inuu wax ka siiyo wuu diiday. macnaha qofku dagaalka markuu galo qanimada marka laga soo qaado dadka dagaalamaya waxbay ku leeyihiin, markaana wuxuu ku lahaa buu xitaa diiday oo yiri anigu ma qaadanayo qof inaan waxba ka qaadaneyn, waxaan shaqaysto ma ahaane. marka waxyaalaha hadda la isticmaalo Firefox waxyaalaha hadda internetka lacagta laga helo oo macnaha waxyaalahan Firefox waxa la dhaho waxyaalahan baakar ganacsigan laptopka lagu shaqeysto qofku lacagta uu qabanayo waxaas. marka qofku waxaas miyuu shaqeystay lacag buu iska qabanaya uusan lahayn, hadduu xitaa ay lacag tahay uu qabto miyuu shaqeystay muu shaqeysan Soomaha. markaana qofku siisaba dhididkiisa inuu cuno waa muhiim. markaana Abubakar Sidiiq baa u iman jiray, wuu yeedhi jiray, wuu diidi jiray. Umar ibn Khattab baa u yeedhi jiray, wuu diidi jiray. macnaha wuu fuliyay balankii uu ku fuliyay nabiga sallallahu alayhi wasallam ka qaaday. markaana waxa la doonayaa in bana kala fuliyo balanada islaamka in la fuliyo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa maadaama islaam leeyahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa lagu dhaqmo la doonayaa. xadiiska ama xadiisada aynu ku soo gabagabeeyno waxa weeye asxaabiba ayaa wuxuu leeyahay waxaanu ahayn 9 aw 8 7 ama 8 qof ayaanu ahayn. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ila mubaayacooda oo ila balama shay ugu la balama. hadaba wuxuu yiraahdeen waayahay waan kula mubaayacona oo maxaan kula mubaayacona. wuxuu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa igu la balantaan oo ay igu la mubaayacootaan على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إن إلهي سبحانه وتعالى عبدان وأيضا أشرك سمين شركي واحد له إن أيضا سمين تايغو balantana ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam. asxaabtu ku yiri sida ogtiin bariga jasiiratul arab ama mushrikiintu arabtu bariga diintoodu waxay ahayd shirki iyo waxyaalaha inay shirki u sameeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadada diintu way yaqaaneen, laakiinse gowraca inay macnaha shayaadiinta iyo waxyaalaha Ilaahay qeyrkii wax u gowracaan iyo in ay xitaa caruurtooda gowracaan in ay baryaan nimankii meesha ku aasnaa ee saalixiinta iyo awliyada u yaqaaneen waxyaalahaas in ay sameeyaan. markaana shirkigu waa waxyaalahaas weeye qofku xitaa gowraca hadda la iska sahashaday waa shirki oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala gowraca Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa iska leh. ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إلهي سبحانه وتعالى قورع إسكاله وإلهي سبحانه وتعالى طريقوينك أوكو إنما وحو قورعيد أجا أقورع إسا لكيسي هبل بمح أقورع يايو يوحس دي وحلقا يلي يماها حتى وحالها إن قفك دوني إنو الشيطان لشقيو كوا falka iyo kuwa sixirka isticmaalay iyo kuwa kaahinada iyo dadka ay u tagaan faylooyinta kuwaas oo gaala oo kuwaas ileen waa gaale Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ka gaaloweyn waxay u shaqeeyaan qof macnaha waxay u shaqeeyaan shaydaanku markuu doonayo in uu wax u sheego qofkan macnaha cilmi qaybka sheeganaya wax sheegayo oo kaahinka iyo waxa lagu yaqaano ee dadka loo tagay macnaha la dhaw maxay ahaayay weydiiyo dadka adigu jimanka la shaqeeya jimanku macnaha waxay ama shaydaamadu waxay ku dhahayaan qofkan
inuu ilaahay diintiisa gaaloobo ay amrayaan. markaana waxyaalaha ay soo jeedinayaan waxaa ka mid ah inuu iyaga wax u gowraco hadduu qofkaas iyaga wax u gowraco inuu qofkaas gaal yahay ee u adeegayaan u shaqeynayaan wuxuu doono u fulinayaan ayay ka balan qaadayaan. markaana gowraca ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iskale. shirkiga inuu qofku ducadu inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u kala yeelo oo uu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryo keligii inuu qof kale inuuna baryin ama awliya ha ahaado ama qof saalix ah sida hadda la yaqaano dee dadka qaar baa awliya baryaan soo markaana waa shirki waa gaalnimo diinta lagaga baxaya. markaana qofku baryadiisa ilaahay maahane wax kale inuu baryin weeye. markaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an ina ilaahay subhanahu wa ta'ala caabudaan oo cibaadadiisana aan cid kale la wadaajin. wa salawaatil khamsa iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu kula mubaayacooday ama kula balanayba shanta salaadood inay ilaaliyaan وتضيع الله إن إله سبحانه وتعالى أضيعان وأسر كلمة خفيفة كتب حوير أصحابه وحو سريست النبي صلى الله عليه وسلم كلمة معناها خفيفة معناها قنير بأجري وكلمة ديبو قنير أجري ولا تسأل الناس شيئا إن هذا إينا تتكوحوا وديسن قفكو إنه يسوي سكر صناعه أو شقيسته oo isagu wuxuu qabsan karo qabsado baa la doonayaa. laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri in aadan dadka wax weydiisan ayuu ku yiri. maxalu shaahidkeenu iyo meesha aynu ka hadlano waa meeshaas. marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu hoos ugu dhigayo kelmadaas wax kala maaha. kelmadii hore oo dhan kor buu qaaday laakiin kelmadan wuxuu hoos ugu dhigayo waxa weeye macnaha dadku badan ma awoodaan oo macnaha ma sameyn karaan oo kuwa hore waa la iska rabaa. shirkiga inaad ka tagtid waa waajib. salaada inaad tukatid shanta salaad waa waajib. ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad adeecid waa waajib. laakiin shaygan qofku uu ikhtiyaar u leeyahay uu hoos u dhigay macnaha hoos buu u dhigay shaygan muu maqshin hoos buu u dhigay macnaha waxay ku tusinaysaa macnaha waxaan shaygan inuu shay weyn yahay uu ku adag yahay uuna waajib weyn uu ahayn qofka uu waajib ku ahayn oo qofka haduu wax weydiisto sida haduu qofku wax weydiisto sida uu kuwa kale u sameeyo uu sameyn waayo loo ciqaabi maayo weeye. macnaha shaygan waa shay nafta ku adag qofkii waxa arkaysaa kuwa far badan ama dadku badan ah 190 dadku waxay weydiistaan Soomaha markaana qofkii waxa arkaysaa isagoo haystay inuu wax ku weydiisanayo markaana tawaajibka aan ahayn ama xaraanta aan ahayn waxa weeye tan caadiga ah qofku inuu wax weydiisanayo laakiin si xaraanta waxa weeye tan inuu soo sheegnay qofku inuu maal badsi ku weydiisto oo noocyada aan banaanayn weeye markaana qofku wax taas weeye. markaana nabiga sallallahu alayhi wasallam muxuu yiri uu sareystay ama kelmadan hoos buu yiri markaana wuxuu ku leeyahay asxaabigii falaqad ra'aytu ba'da ulaa'ika nafar waxaan arkay kuwaas uu la mubaayacooday nabiga sallallahu alayhi wasallam in dadka waxba weydiisan barkood iyagoo macnaha faraska la socda in uu ka dhaco xariga ama waxa ay faraska la dhacayaan oo ay ku wadaan in uu ka dhaco iyagoo saaran kadib markuu ka dhacana ka dhulka jooga maadaama iyagu ay faraska saaran yihiin kuma dhahayaan iisoo dhib shaygaas macnaha shaygii yaraa dhulka kaga dhacay xitaa qof dhiimayaan iisoo dhib sida ay u ilaalinayaan balanka nabiga sallallahu alayhi wasallam. markaan waxa la doonayaa inaynu nabiga sallallahu alayhi wasallam diintiisa iyo axaadiistiisa iyo awaamirtiisa in ka faa'iideysano insha Allah ta'ala ilaahay inuu anfaco. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.